dadka kale waxyaabaha ay kuu sheegaan waxba ku mashquulin laakiin su'aasha ugu koowaad oo adiga ku taal waxay tahay ma istaqaan mise waxaad u baahan tahay inaad dib isu baratid haddii aadan isaqoonin fadlan isbaro waxaana xaqiiqo ah sida Aristotle uu yiri knowing yourself is the beginning of all wisdom caqliga iyo xigmadda oo dhanba waxa ay ka bilaabataa qofka isaga inuu isbarto isfahmo ogaado cidda uu yahay yaqaano meelaha uu ku liito fahamsan yahay meelaha uu ku fiican yahay iyo sidaas oo kale waxyaabaha marka muhiimka waxa kamid ah oo faa'iidooyin tiro badan inay ku jiraan qofka isaga inuu isbarto faa'iidooyinka waxa kamid ah number 1 qofka in uu si farxad ah iyo firfircooni ku jirto uu noolaanayo hadduu isaga isbarto ilaa moogtahay qofkii isaga is yaqaana noloshu dhibi maysaba meeshii fududna uu aadaya oo ka bixi karo meeshii dhib leh oo uu og yahay inuu waxba ka qaban karin uu iska dhaafaya laakiin qofka meelba ku dhacaya mar qofkaas way qofka dhiboonaya arinta labaad ee faa'iidada labaad ee laga helayo waxa kamid ah amni naftaada dhexdeeda dareemaysa qof isaga isla nabad ahaad noqon doonta qofka isaga dhexdiisa ka dareemaya amaano waa ka dareemaya amni iyo deganaan iyo ka dareemaya muxuu ahaa in khilaaf uunan jirin cidda banaanka uu isu haysto inuu yahay iyo cidda actually uu isagu yahay arinta saddexaad ee muhiimka waxa weeye go'aan qaadasho fiican ayaa ka dhalanaysa qofku markuu isbarto waxa ku soo baxaysa in ay ku sahlanaato in go'aano fiican aad qaadatid waayo waxaad wax ku cabiraysid waa cabir sax meesha aad joogtay ayaad ogtahay adigoo inta jooga isu qaadan maysid inaad inta joogtid si qalad muxuu ahaa uga badbaadi arinta afraad ee faa'iidada waxa weeye isxakamaynta naftaada marka aad baratid oo aad si fiican isu baratid waxa ku sahlanaan doonta inaad isxakamaysid oo aadan noqonin qof ay ka yimaadaan waxyaabo aan laga filayn waad isxakamaynaysaa ilaa waad istaqaanaa si fiican baad isu baratay waxyaabaha muhiimka ah ee ka faa'iideyn doonto waxa kamid ah qofka naftiisa marka uu barto qodobka shanaad iska caabinta cadaadiska bulshada aad bay ku cadaadinaysaa bulshada waxbay ka rabtaa qof waliba expectations uu leeyahay Cabdiwahaab waxaan ka filaynay inuu saaysaas sameeyo Cabdiwahaab waxaan rabnay saaysaas inuu noqdo waxaan rabnay in waxaas keeno who cares waxaas dadka dan iyo muraad inaad ka yeelatid maaha marka isbaratid oo isfahamtid cadaadiska dadka iyo hadallada ay tirinayaan waxyaabahaas oo ku mashquulin maysid wax badan ma ka bedelayaan waxaan noqon doontaa qof is yaqaana dadku waxa ay sheegayaan run inta ahna wada aaminsan tahay been waxa inta ah ama cadaadis dartiisa ay wadaan ama aqoon la'aan ee adiga ay ku aqoonin darteed ka keenaysana culays kugu maamuurayso laakiin qofkan is aqoon maxaa dhacaya mar walba bulshada inuu la socdo saasaa la yiri saasaa la iga rabaa waa gaabiyay waa fashilmay waa ceeboobay saas ku